qorshayaal sida xogiyada guud u sheegay oo ahaa inaan ka wada tashano qorshaha doonayna insha Allah inaanu hawshiisa galno sanadka soo socda 25 ilaa 2029 qorshahaas aan ugu talagalnay doorashooyinka qaybaha kala duwan Puntland insha Allah ka dhici doona waxaan horey u soo aragnay xisbiyada siyaasadda talooyinkoodii waa noo soo gudbiyeen bulshada rayidkaas sidoo kale wasaaradihii muhiimka ah waa kuwan wasaaradaha kalena insha Allah iyo qaybaha kale bulshaduna kulanadoodu waa noo soo socdaan marka waxaan filayaa hadalka inaanan idinku badina ujeeddadu waxaa weeye inaynu helno qorshe loo wada leeyahay oo aanu ku wada qanacsannahay inuu noo howlgalo 25 ilaa 29 عيبتي وقابل لقى بحيو هوبنتي وياني شعبك وهمون قبينو قارو هيدن كاسي عيانكيو قيدي قلرري هوي سنبود لقي عيبتي وقابل لقى بحيو هوبنتي وياني شعبك وهمون قبينو قارو هيدن كاسي عيانكيو قدي قلرري هوي سنبود لقي beek waxay soo bandhigaysay guddiga doorashooyinku 5 sano ee soo socota qorshaha u degan ee lagu gaarayo in waqtiga lagu qabsado doorashada soo socota dowladda waddanka hadday ahaan lahayd guddiga deegaanka xuseeya iyo wixii xuseeyaba dowladda labaan iyo raayid qorshe fiican buu ahaa ogaadin bay midnaan xaqiiqatan si wanaagsan u fakarayeen وين وعداين هلك السعوديين هلك هيك سنيان وزارتها صوبت الله ويرنا حوينا بلك كستكارنت كجاءدن أي كقادته وهرب وديار أنا وزارة وفيتها أنت وحاب السعودية وين كسرنت ووعي جرنتا طيف التكنولوجيا بين واحد السعودية كسرنت وحوينا الهرو هبكو كله التكنولوجيا كله درشة كعاورية marka halka inaan mas'uuliyadda qaadano oo dusha saarano oo diyaar garowno fahanana kaalintayada iyo doorkayga ballan qaadnaa inaan ku dadaalno ayaan ku metelay wasaaradda istiraatiiji ah faafintiisa iyo detailkiisa dib loo geliyo qodobadii la soo jeediyay annagu wasaarad ahaan mar walba waxaan wakiilka dad boqolkiiba 65 oo ah haweenka marka qodobada aan ku dirsanay waxay in mar walba tixgelin la siiyo ayaga gaar ah si qoonto loo qoonsanay iyo hadii qoonto loo xiriyo oo aysan dadka dadweynaha aysan ku darman karin inkastoo qof fiican tahay qof fiican la yiri qofka furiidu iyo meeshu waxaysanayo laakiin weli horumarkaas ma ana kaarin sida Soomaaliya karimaha sababta waa ku farxsanay si fiican bay u dhamaatay runtii wuxuu ahaa maaragtay kulan aad u muhiim ah beeg waxay soo qabatay shaqo aad u fiican oo inoo soo bandhigtay shaqadii waxaanu samaynay inaan ka niqaashno wixii tala ah iyo wixii ra'yi ah inaan ku darno muhiimadana waxay tahay Puntland waxa ay gaadhay meel wanaagsan oo ah 36 degmo in maanta ay doorasho consulsku ay ku fadhiyaan doorasho ay ku fadhiyaan xisbiye ah meesha loo socdaana waxay tahay in tan hadda jirtana aad maaragtay loo xoojiyo lana gaaro in maaragtay Puntland ay gaadho waqti xildhibaanada iyo madaxweynuhuba ay ku soo baxaan dimuqraadiyad iyo cod maaragtay shacab arrintaas runtii aad iyo aad arrin maaragtay muujinaysa 26 sano ee aan dawladda ahayn runtii wixii ugu weynaa oo aan runtii aan gaarnay ay tahay shirkanu waxaanu ka geysanay waxyaalihii aan ku darsan karnay oo commenti ahaa hadday caqabad ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd wixii markaas dhanka yaga aan rabnay inaan ka geysano waan kaga darsanay oo talooyinkii wixii talo nagaga aadanaa waan ku darsanay sidoo kale waxa weeye awal waagi hore maadaama oo doorashadayna ku cusbayd one food ee dowladda Puntland caqabado badan baa jiray marka caqabadihii si fiican baa uga soo gudubnay bulshaduna aad iyo aad hadda ugu wacyi gashan tahay doorashaduna muhiimad u leedahay in bulshadu ay horay ugu socoto sababtoo ah markii doorashada ay qofku dooranayo qofka uu garanayo waa muhiimad gaar ah oo u leedahay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan horumar fiican ka gaarnay doorashada haddana waxaan rajaynaynaa
guddiga feeg inuu insha allah dardar geliyo shaqada qorshaha maanta uu soo bandhigayo oo aan wixii talooyin aan ku darsannayna isaguna sidii aan rabnay inuu noogu fulo dowladduna waa garab taagan tahay dhan kasta shacabkeennuna waa garab taagan yihiin marka insha allah horumar baan ka rajaynaynaa